la dhibaatoonayo caynta isha xaasidka caynul insi waljinni la dhibaatoonayo dadka la dhibaatoonayo in la sixray oo sixir loo soo maleeyey dadka la dhibaatoonayo xaasidka iyo cuyuunta iyo qumayda ka buuxdo maanta waxaa idiin wadnaa suurad ood garanaysaan oo qofkii qur'aanka wax un ka yaqaano suurad u yaqaano difaacana markaas ku noqonaysa insha allahu tacaala ku soo dhowow daawadaha sharafta badanoo muuqaalka loo xiiso badan muuqaalka like saar like ku dhufo ha noqon bakhiil sidoo kale muuqaalka subscribe saar janaalka si aad ugu xirantid dulman production gamaleelka furo si wax kasta ay kugu soo dhacaan mahadsanid بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أصحابتنا شرفت له كوحر جنة الكان وحن مانتا إذين ودنا إن شاء الله تعالى مقال عجيبة وحن إذين ودنا صورة دا خرستان وعدد كأن شيء دون إن شاء الله تعالى كخرستان إلى إن كو دفاعيو إلى إن كو حجاب لإن كغليغايو سحرنا إذن نقدونتو إن شاء الله تعالى dadku waa dad baahan waxay u baahan ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanta ilaahay u baahanna fuqaraanna fii suurati faadir ilah wuxuu ku leeyahay yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu alghaniyu alxamiid dadkaanow waxaa tihin kuwo ilaahay u baahan waxaa tihin kuwo ilaahay u baahan faqiir baat adugu ilaahay waa hani wa anta alfaqiir yaa u baahanta marka ilaah u baahanta subxaana wa tacaala baahida marka waxaa ka mid baahideenna waxaan rabnaa caafimaad waxaa iska jiro xanuuno waxaa jiro jirooyin waxaa jiro xaasid waxaa jiro saaxir waxaa jiro kuhaanlow waxaa jiro tafafilow kuna maqan dadka muslimiinta ku maqan ayaa jiro dadka laba kala baxaan waa un dhaalim iyo madluum qof waa dhaalim keliya wuxuu ka shaqeeyaa dadkas oo ku dulmin lahaa qofna waa madluumo kii la dulmiyo waay haddaba haddii alla idmo dadka la dhibaatoonayo caynta isha xaasidka caynul insi waljinni la dhibaatoonayo dadka la dhibaatoonayo in la sixray oo sixir loo soo maleeyey dadka la dhibaatoonayo xaasidka iyo cuyuunta iyo qumayda ka buuxdo maanta waxaa idiin wadnaa suurad ood garanaysaan oo qofkii qur'aanka wax un ka yaqaano suurad u yaqaano difaacana markaas ku noqonaysa insha allahu tacaala oodan u baahan doonin inaad wax sheega u tagtid qof wax sheeg ah oo meel fadhiyo inaad u tagtid aan u baahnayn waxaad u baahan doonin insha allahu tacaala qof intaad u tagtid ee lacago fara badan kaa qaadanayo ee ku dhahayo orod halkaasa laga gaaray heblaaya ku sexirtay ama hebelaa ku sexray halkaasa laga gaaray wax uun kumeel gaar ah ee 6 bilo kadib ama isbuuc kadib barti haddana aad ka bilaabanayso iyadoo lacagta laga qaatay oo u baahan doonta insha allahu tacaala albaab walba garaac doonteed waad isku filnaan doontaa ilaahayna waa kaafigaaga insha allahu tacaala suuraddan akhriso suuradda waxaa la yihahdaa suuratu alfalaq ayaa la yihahdaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul acuudu birabbi alfalaqi ayaa la yihahdaa suuradda waa suurad nabigeena calayhi salatu wasalaam ilaahay ku baryay ilaahayna u aqbalay suuratu alfalaq iyo suuratu annaasba waxaa loo yaqaanaa macuudataan nabigeena la sixray calayhi salaatu wasalaam markaasuu ilaahay soo dejiyey labadan suuradood markaasuu akhrisaday markaasoo sixirkii baaba'ay oo fiirso ilaa nabigeena madiino ku noolaa oo cadow ku nool yahay yahuuda ku nooleed munaafiqiina ku nooleed wax walba waxmaan sameynaa dee yahuuda aabba iyo hooyo u ah halkaas marka macuudataan loo yaqaanaa waa kuwa ilaa lagu mangalowa subax walba waxaa laga rabaa qofka inuu ka akhrisado suurat alikhlaas labadan suuradoodba qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas min 3 ka akhrisado galabkiina min 3 ka akhrisado كافي يكون الله إن شاء الله تعالى كافينا يعني إلى إذن كيس سورة الفلق وحد آخر سنة ساعة هذه الله إذنه بقول جر كآخر بقول جر كمان على آخرية صدح بقول صدح طوان على آخرية شن بقول كن على آخر صدح هسأت لك بقولك وعدد جرأة سورة دي أوير 8 دقيقة شن 8 دقيقة كير أو بحكرتها سورة بقول كآخر دمي صب الله دمي صب الله إن شاء الله تعالى دمان waxa jirka ku jiro waxa ka buuxo cuyun ka buuxo waxa qumaya ka buuxo
dadka maakiriinta iyo xaaqidiinta iyo xaasidiinta iyo saaxiriinta ah kulli insha Allah waa baaba'ayaan waa jabayaan sababtoo ah ilaahay ka magan gashay ilaahna Allah la magan galo marka ilaahay ka magan gashid sixirkooda iyo ishooda iyo xaasidkooda ilaahay ka magan gashid ilaahay waa ku xifdinaya lan suuradu waxay tahay waxaalada wax baan gelayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala la magan gala nabigana uu yiri alayhi salaatu wasalaam wax ayaga ka wanaagsan ma ayagoo kale ilaa lagu magan galo ayagoo kale macnaha qof u baahan maangeliyo u baahan oo ilaahay wax wadiisto u baahan oo ilaahay wax shay oo ka magan galo u baahan wax ilaahay ku wadiisto oo loo soo ka weyn suuratu farq iyo suuratu naas ma jiraan ومن عائشة رضي الله عنها مركر إلهي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كما قال جري يجري أن توح مقعه وعين الإنس والجان كل وإلهي من قال جري مركز سوردان سود دقينا وكم مرمي إله سبحانه وتعالى وكم مرمي النبي وكم مرمي وحاصل جري سوردان خلاص إلهي ومن قليل النبي الله حفظيه هذا كان الله حفظنا يا إن شاء الله تعالى إلا والله حافظه ورازق وحصلنا إلهي إن شاء الله إله كافنا هذا سحرك إله كمان قش ومن شر النفاثات في العقد سحرك قلت الماما إلا سحرك واحد سكون مليو يوحل حيرو حرك الله حيرو بلا له حيرو حسد كلا كمان قش ومن شر حاسد إله كمان قش سجود الشر العام شرط جود إله كمان قش وحصاد هذه من شر ما خلق waxaad ka leeyahay kam wax ilaa warshirkoodii waa mogti waxaa ka leeyahay kaman gashay habeenkii mugdiga ku jiro habeen markay soo qaabilo habeenkii la gaaro kulli bahalada soo baxayo waxa soo baxa muudi ka soo baxayo shayaadiintii jinniga iyo jaankii kulli soo baxayaan waxba wax dhibo soo baxay habeenkii dugaaga soo baxayo wa min sharri ghaasiqin idha waqaba atmaamis halkaas marka maxaa ku dhiman marka wax ku harsan malahan waad ka maarmaysaa insha allahu in inta qof wax kuu sheegay oo kiri halkaas laga gaaray heblayaa ku saxir heblaa ku saxir iyo sixirkaas ka waa iyo waxa laga soo bixiyay iyo waxaas kugu jiri waad ka maarmaysaa akhriso suuradan boqol jeer ka akhriso kadibna ila kuma cad doonto insha allahu taala markaas caafimaad ka helaysaa kulli waxa kugu jirin oo gubanayaan gubtaana waa aga carraa waa iska holeynayaan markaas qof halo inuu ilaahay mangalo ففروا إلى الله إلى عرّ حقيس هادين حقي لا يجاري يعني أطجع سنسمع ولا أسئلين إلى حقيس أو عرّ كلامك إلهي أسود دجيي فيه شفاء للناس إلى أيدي وعافمات ذاتك عفان أيهي إلى كل سبحانه وتعالى أخرسوا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وعافمات إمسا شفاء لو شيء القرآن كجرت تضوك وسيجاريا وإذا مرضت فهو يشفين هذا جرد إلهي عافنا إلهك عافنا مرك إلهي بري مرك إن شاء الله تعالى وقال كان وعجيب كان وقلت لك لي بلشده هنا الصوماليات ولا لين المسلمين تأه إلا تباتونا عيونتا يحسد يسحر إلا تباتونا أنا قلت لك لي إن شاء الله تعالى وحين كبورنا كيف إستان أصحابتي لنا وفائديسان كدبنا إن شاء الله تعالى خيرك نعممو شركنا إلى قرية كبحيو وقرية وحال رأي إنه قرية خيرك كأوغية إنه قرية خيرك كأوغية حرس حركة كلامك إلهي ذكرك حسك إلهي وكأوغية سيو نصيب أوغية لان بلاياس إيو جنك إيو إنسك وحدبايو سو قلين يقول لك قرية خراب أويا وقرآنك أنه آخرين إلا أنه برين بلاك تاسو قليس لكن دوية قري قرآن لو آخرنايو وخيرك لو آخرنايو وإلا لو بريايو وإلا لو حسايو وحس وكهول إلهي إن شاء الله تعالى ما أنت كدبنا إن شاء الله تعالى بالله ما أنت بالله لقب بالله ما أنت بالله وادهلي خير كذا إن شاء الله تعالى إلى اللقاء والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.